madaxweyne soo dhawow sharaf ay noo tahay waxaan hubnay inaad u soo horeyn lahayd madaxda imaanaysa laakiin dhibaatooyinka dhaca awgood ayaa u soo daahday waana la garowsan yahay arintaas marka alxamdulillah rabbil caalamiin in aad maaragtay aad noo timiday adoo nabad qaba idinkoo nabad qabtaan marka hore waxaan ku soo dhaweynaa inuu hal eray ka yiraahdo madaxweynihii hore inuu yiraahdo asayna marka madaxweyne adigana waxaan ku leeyahay hadda howl culus inaad ka soo tagtay meeshii ahayd jowhar na waa ognahay dhibaatooyin aad u fara badan daadad wax walba maxuu ahaa hadda arrimahaas oo jira inaad haddana waa lama huraan oo hashi maandeeq ayaa miiska saaran marka inaad arrintaas hadda adaa naga wakiil ah adaa nagu matalay waxaan leenahay qof kasta ka soo qayb gashay iyo qof kasta soo agaasintay ama tala ka geysatay wanaagaad samaysay ilaahay ka abal maryan leeyahay aad iyo aadaanan ugu faraxnay qaabka noola soo dhaweeyay ujeedada safarkayna ra'iisul wasaaraha dalka ayaa casuumaad noo soo diray waxaana rabnaa inaan ka qayb galno haddii ilaahay raalli ka noqdo shirka wada tashiga qaranka ee arrimaha doorashooyinka waxaana rajaynayaa haddii ilaahay raalli ka noqdo inay walax ummadda Soomaaliyeed ay ku faraxdo mustaqbalkan ay u aydo inay ka soo baxaan haddii ilaahay raalli ka noqdo aad iyo aad u mahadsantiin